maxamed ibraahim oo ah wiil u dhashay dalka Masar ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa si aad ah loogu weerarayay baraha bulshada ay ku kulanto kadib markii ay soo shacbaxday in uu jacayl la wadaagay doonayana in uu guursado haweeney u dhalatay UK oo 80 sano jir ah. balse intaan u gudagalin faahfaahinta sheekadan, haddii aad muuqaalkan ka heshay like saar maxaa yeelay waxay noo tahay dhiirigelin, sidoo kale sii sheer gareeya mahadsanidin. inkastoo farqi aad u weyn oo dhanka da'da ah uu u dhaxeeyo, inta badan dadka dhaliilsan ay ku eedeynayaan in maxamed damaciisu uu yahay in haweeneydan uu ku helo jinsiyadda Britain, haddana waxa uu ku adkaysanayaa in uu si dhab ah u jeclaaday. haweeneydan ayaa ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson u dirtay codsi ay ku difaacayso kuna dalbanayso in la xaliyo dhibaatada haysata saaxiibkeed si ay u dhammaystirto qisada jacaylkeeda. haweeneydan waxaa lagu magacaabaa Iris Jones, waa 80 sano jir. dhowaan ayay booqatay dalka Masar, halkaas ayayna kula kulantay wiilka reer Masar Maxamed Ibraahim. halkaas ayuuna ka bilowday xiriirka jacaylkooda. inkastoo Maxamed uu yahay 35 sano jir ama uu Iris Jones ka yar yahay 45 sano, maadaama iyadoo ay tahay 80 sano jir. kadib markii uu wargeyska The Mirror baahiyey warbixin ka hadlaysa xiriirka jacayl ee Maxamed iyo Iris Jones, waxaa baraha bulshada ka bilowday weerar ka dhan ah wiilka reer Masar, waxaana inta badan dadka dhaleeceynaya oo u badan shacabka Ingiriiska ay Maxamed ku eedeynayaan in uu qiyaamayo Iris oo uu doonayo in uu ku qaato dhalashada Britain. maxamed oo arrintaas ka jawaabaya ayaa xaqiijiyey in uusan dan ku jeclaan haweeneydan 45 sano ka weyn, balse uu si dhab ah u jeclaaday. labadan lamaane ayaa dhowaan ku aqalgalay dalka Masar. Iris waxay dhowaan fariin u dirtay ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson, waxayna ka dalbatay in uu garab ku siiyo in jinsiyadda Ingiriiska la siiyo xabiibkeeda Maxamed si ay nolosheeda inta ka harsan agtiisa uga qaadato. Iris waxay isku dayday in ay weerarka ku socdo xabiibkeeda ka khafiifiso, waxayna tiri, waxaan u sheegay in aan hanti ka leeyahay guri aad u yar, waxaana diyaar u ahay in uu dhaxal ahaan u qaato markii aan geeriyoodo. balse wiilka reer Masar ayaa ku adkaystay in uusan wax kale fiirinayn ee aan ka ahayn in uu jecel yahay. Iris Jones hadda waxay isku diyaarinaysaa in ay dhowaan la aqalgasho Maxamed, waxayna soo iibsatay labiska arooska, waxayna sugayay inta xabiibkeeda uu ka helayo warqadda dalku-galka Ingiriiska. intaas kadibna ay si wada jir ah ugu wada noolaadaan gurigeeda yar. nala wadaag fikirkaada, mala qabtaa in Maxamed uu Iris ku doonayo in uu ka helo jinsiyadda Britain, mise waxaa la dhihi karaa jacaylka haweeneyda ka weyn 45 sano waa mid dhab ah? aragtidiina noogu soo hagaajiya qaybta kommentiga. mahadsanidin.